reer Israa'iila oo Ilaahay uu dhaqaale siiya jiray oo qani ahaa laakiin wuxuu ahaa musrif oo israafay ninkaas naftiisa uma fiicnay ومعاصي بدنا والله نعميي أولاد با إلهي سيي أرزاقات با إلهي سيي عافمات با إلهي سيي مع ذلك هدنا وحوها من عاصي يبوها لكن صفة عجيبوا لها صفة دي سمعي دادك أيو لعكتها ما هنجري مركا كي سوعي يحلق اللقو بالله وكقادنا يي كبلنت إي بيري قادنا بلنت أكرلين يي ككيني كري وين وسكعفنا يي maalintuu dhimanayay buu nimadiisa u yeedhu yiri aniga Ilaahay aaba waa nicmeeyay laakiin nicmada Ilaahay waan ku kufriyay waxaan Ilaahay la hortagayo iga horeeyo khayr aanu ma garanayo ma garanayo wax khayr oo iga horeeye aaba dadka sidaan ula tacaamula buu yiri daymiya kadayga soo celiya xilliga lagu ballamana ka qaata kadayga soo celin kari waayana ka cafiya ka ballanta noo biiri yiraadana mawcidka u biiriya maalik uu dhintay ayaa ninkii Ilaahay la hor joojiyay Ilaahay baa soo saara ii kana adoonkaas markaas Ilaahay adoonkan u nicmeeyay matihi hawaanahay adoonkii baan hadla timid maanta agteeda aad soo dhigatay waxba mujrim baan ahay ظالم baan ahay faasiq baan ahay musrif baan ahay mutrif baan ahay waan israaf markaas Ilaahay jalla wa ala ku yiri miyana lahayn adoonkaygi adoomahayga dayminayay sida ula tacaamulay maadahayn waanaha adoonkaygi miyana dahayn maalintu soo dhimanay wiilashiisa kala dardaarmay yiri kadayga soo celiyana ka qaata ka mawcidka noo biriiraadina mawcidka u biriya ka soo celin kari waayeen iska cafiya adoonkii inamadiisa sida kula soo dardaarmay in adoomahayga ula tacaamulaan adigu ma tihid hawaanahay ana waan ku cafiya jannada qalba Ilaahay والعافين عن الناس والله يحب المحسنين